bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada warbaahinta caalam midiya ad kala socotaan akhbaaraadka caalamka. daawadayaal barnaamijkeenna waxaan uga hadli doonaa xaaladii ugu dambeeyey magaalada khaza, dagaalada ka socda ee falastiin iyo israa'iil u dhexeeya. dagaalada xaaladihii ugu dambeeyey iyo halkay marayaan, dhimashada dadka ku geeriyooday khaza oo la sheegay inay gaarayso 12,000 oo qofood, halka dhaawacyaduna ay xaddhaaf yihiin. isbitaaladii dhaawacyadii ku jireen oo isbitaaladii markale laga qaxinayo dhaawacyadii. isbitaalka Indonesia oo duqeyn xooggan Israa'iil ay u geystay iyo dad ku geeriyooday, shaqaalaha gargaarka halkaa ku sugan iyo kuwa caafimaadka oo la sheegay inay ayaga laftkooda kaalmo degdeg u baahan yihiin. soo dhawaada daawadayaal mar kale caalam media ku soo dhawaada. YouTube-ka subscribe noo saara, fiidiyoga noo share gareeya. kala maqnaantii aan kala maqnayn oo idinkaga raali gelinaya duruufo aad u xooggan oo dhankayga ka jiray dartood. waxaan idinka codsanayaa in idiin soo duceysa garab istaagiina iyo ducadiina ayaan markasta u baahanahay. daawadayaal ee soo dhawaada mar kaleeto. akhbaaraadkii ugu dambeeyey magaalada khaza ayaa sheegaya in dagaaladu ay sii soconayaan, halka Israa'iil ay weli beegsanayso goobaha gargaarka dadka shacabka looga sameeyo sida isbitaalada, goobaha dadku ay ku qaxeen, iskuullada, xarumaha hay'adaha samafalku ay degan yihiin ee magaalada khaza iyo kaamamka qaxootigu ay degan yihiin. duqeymihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay geysato waxaa la sheegay in loola beegsaday isbitaalka Indonesia oo ka mid isbitaalada ugu waaweyn magaalada khaza ku yaala. dhowr mar dhibaatooyin xooggan ay soo gaareen, kaas oo la sheegay in shaqaalaha hadda ku sugan ayagoo ay u baahan yihiin in gargaar degdega loo fidiyo kadib duqeymo xooggan oo ku dhacay. wararka ayaa sheegay in 8 qofood ay ku geeriyoodeen, halkaasoo la sheegay in dadna ay ku qaxeen, dad iyagu aad u fara badan dhaawacyo ah oo aan haysan daawooyin ku filan, qalliimo ku filan iyo si lamid shidaal loogu shaqeeyaba isbitaalku inuu haysanna xaaladii ku haysta duqeyn loogu sii daray. isbitaalka Al-Shifa oo la ogaa in dhibaato xooggan isaga ay haystay, Israa'iil waxay soo bandhigaysaa god ay sheegtay inay ka heshay gudaha isbitaalka, halkaasi oo u soo bandhigtay qaar ka mid warbaahinta reer galbeedka. godka inkastoo warbaahintu ay sheegayeen inaan caddayn karin inuu yahay god Xamaas isticmaal jirtay iyo halka uu jiro, haddana saraakiisha Israa'iil waxay leeyihiin halkaan waxay ahayd kaam ciidan ee ma ahayn goob caafimaad. godkan laga helana wuxuu muujinayaa inuu ahaa goob isku xiraysay talisyada ciidamada ururka Xamaas. magaalada khaza weli xaaladdu aad u cakiran tahay, gaar ahaan dhinaca Khan Yunis waxaa la sheegay dagaallo xooggan ayadan inay ka taagan yihiin. dagaalada oo weli soconaya, dad badan ay ku dhimanayaan ayaa la sheegayaa in dhimashadu hadda ay gaarayso ilaa 12,000 oo qofood dad kor u dhaafaya. 2,000 oo qofood ka badan ayaa saraakiisha Xamaas waxay sheegayaan in dhismayaashii burburay ay weli ku dhex jiraan, cid ka soo saartay inaysan helaynin. weliya CNN-ka ka tirsan booday khaza, gaar ahaan Israa'iilna ay geeyeen isbitaalka Al-Shifa ayaa sheegay in xilli habeen oo la geeyey xitaa laga dareemayo dhismayaasha burburka xooggan ee soo gaaray. inkastoo la erusan jirin, haddana wuxuu leeyahay noloshii ka jirtay guud ahaan halkan waxay u muuqataa inay ka burburtay oo wax nolol aysan ka jirin. Israa'iilna weli duqeymihii way sii wadaa. intaa waxaa dhinac soconaya, waxaa sheegaya in wadaxaajood u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil iyo Maraykanka, qadarna ay garwadeen ka tahay, ay meel wanaagsan marayaan, kaasoo la doonaya in maxaabiista qaybo ka mida lagu sii daayo. waa wararkii ugu dambeeyey khaza ka taagan, waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhanka Lubnaan ayadan isku dhacyadii weli ay ka taagan yihiin. sidoo kale xuutiyiinta Yemen ayaguna markab ay afduubteen, ay leeyihiin Israa'iil ayaa leh, inkastoo Jabaan ay sheegayso in markabkaasi iyadu ay leedahay cambaarayn ay u jeedisay. xaaladda khaza waa xaalad aan laga sheekayn karin. sidoo kale daanta galbeed oo Israa'iil iyadu ay ku gadaaman tahay, Falastiiniyiintu ay degan yihiin, weli waxaa kasii soconaya dilka iyo dhibaatada dadka shacabka loo geysanayo. inkastoo baaqyo badan ay soo baxayaan oo la xiriira in dagaalada khaza la joojiyo, dhibaatada daanta galbeedna sidoo kale Israa'iil ay yarayso, haddana dheg jalaq uma siinayso Israa'iil, waxayna markasta ku hanjabaysaa inay Xamaas ay burburinayso. kaalinta koowaad ee howlgalka Israa'iil ayaa taliska Israa'iil waxay sheegayaan in xooggoodu uu yahay inay sii ku burburin lahaayeen ururka Xamaas ay u arkaan haddii uu sii jiro in Israa'iil ay burburi doonto, halka dadkooda lagu haysto oo Xamaas ay gacanta ugu jiraan oo banaanbaxyada ka dhiga Israa'iilna ay xoogga saarayaan sidii dadkooda lagu sii dayn lahaa. dhibaato xooggan ayaa weli ka taagan. dhanka Xamaas waxay iyaguna sheeganayaan in guulo ay ka gaareen dagaalada soconaya, taangiyo badan iyo qalab badan Israa'iil ay burburiyeen. daawadayaal soo dhawaada mar kale, ku soo dhawaada caalam media. YouTube-ka subscribe noo saara si dad badan aan u gaarno, fiidiyoga noo share gareeya.